xafiiska xeeladaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu si weyn uga walaacsan yahay kororka falalka la xiriirsan kicinta qabaa'ilka, faafinta wararka been abuurka ah, marin habaabinta dadweynaha iyo falalka lagu wiiqayo kalsoonida hay'adaha dastuuriga ah ee dalka. Haddaba waxaan xasuusinayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed in xorriyadaha uu tilmaamay dastuurka, gaar ahaan kuwa la xiriirsan hadalka iyo helitaanka macluumaadka, ay yihiin xuquuqo uu damaanad qaaday dastuurka federaalka ee dalka. hase yeeshee xuquuqdaas waxaa hareer socda oo loo baahan yahay in markasta la ilaaliyo, aanan laguna xadgudbin xuquuqaha kale ee la xiriirsan dadka kale, amniga qaranka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. baryahan dambe waxaa jira warar aan sax ahayn oo ka dhan ah hay'adaha cadaaladda, kuwaasoo la xiriirsan kiisas ay gacanta ku hayaan hay'adaha cadaaladda. waxaana ka mid ah kiisaskaas kiiska eedeysana Sacdiye Macalin Cali Xasan oo ah muwaadinad Soomaaliyeed oo ay soo xireen hay'adaha baarista 12 bishii Afraad 2026, lana horgeeyay maxkamadda awoodda u leh si waafaqsan dastuurka dalka 48 saac gudahood. maxkamadaha dalka markii ay dhageysteen warbixintii hordhaca ahayd ee la xiriirsaneyd eedeysanada, waxay maxkamadda ku qanacday warbixinta, waxayna ansixisay xarigeeda si waafaqsan dastuurka. hay'adaha baarista waxay guda galeen soo gudbinta warbixinta baariseedka ee booliiska ee loo yaqaano gungaarka, kadibna si waafaqsan sharciga xafiiska xeeladaha guud ee qaranka waxa uu u gudbiyay maxkamadaha awoodda u leh ee waafaqsan sharciga. maxkamaddana iyadoo raacaysa habraaca sharciga ah waxay soo mudeysay kiiska eedeysanada, waxaana la dhageysan doonaa dhowaan. xafiiska xeeladaha guud ee qaranka waxa uu kalsooni ku qabaa in muwaadin kasta iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo loo haysto faldambiyeed ay maxkamaduhu si madax bannaan, cadaalad ah, isla markaana degdeg ah ay go'aano waafaqsan sharciga iyo cadaaladda uga gaari doonaan. xafiiska xeeladaha guud ee qaranka wuxuu cadeynayaa in loo siman yahay sharciga hortiisa, isla markaana qof kasta oo lala xiriirinayo faldambiyeed uu leeyahay dhammaan xuquuqaha iyo damaanad qaadka uu dastuurku cadeeyay, sharciguna siiyay, sida difaac sharci, maxkamadeyn cadaalad ah, iyo in loo tixgeliyo dambilaawe ilaa dambiga lagu cadeynayo xukun kama dambeys ah oo maxkamad awoodda u leh ka soo baxay. hay'adaha cadaaladda waxa ay u siman yihiin qof kastoo muwaadin ah, waxayna gudanayaan waajibaadka sharcigu uu faray, iyadoo qofka loo adeegayo aan loo eegin qofnimadiisa, aragtidiisa iyo xaaladaha bulsho uu ku jiro. ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan mas'uuliyad, taxaddar iyo inay markasta u hoggaansanaadaan sharciga. wabillahi tawfiiq.